iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waxaan kelmad yaro kooban ka horreysiin doonaa kole sheekhu idinka dhaafay waxa weeye waxay naga codsadeen in la googooyo oo 20kii daqiiqaba 60kii daqiiqo 20 laga dhigo marka kolka 20 mirir uu socdaba inaynu yar yara xidhno oo mid kala bilowno ayay noqonaysaa marka ha kala dareerino inuu dhamaaday ha u qaadanina laba jeer baan joojin doonaa oo midiiba 20 daqiiqo tahay insha Allah marka 60ka daqiiqo ma la eeganaya 3 meelood oo min 20 marka qaybta hore waxaan ku qaadan doonaa insha Allah cilmigan imika aynu u fadhino caawa oo runtii sheekuna waa aad u xayeysiiyay Allah inagu asturo ilaahay waxaan ka barayaa wixii qalad aynu inaga badbaadiyo xaqa iyo sawaabkana uu ina waafajiyo idinkuna kolley mar haddii shayga la duubayo lana baahinayo wixii sabq lisaana ee carabku uu boobo ama af Soomaaliga khaldama ama masalada aynu khaladno ama laqabada kulay dad baan halkan culimada fadhiyo oo ibaraarujin doona intaan qalad ku fogaanin marka taana qofkii ku qanca inay masaladaas qalad tahay fartu ii taagi doona si aan u saxay insha Allah oo qaladku hadiya jeer wuxuu ku fiican yahay intuu dhow yahay ama aanu baahin ama la sixi karo waqtigaas uu ugu fiican yahay qaybta hore waxaynu xusi doonaa insha Allah cilmu tafsiir cilmigan aynu fadhino caawa ama aynu bilaabayno insha Allah taala ee tafsiirka la yiraahdo qodobo la xiriira si uu qofku wax uga ogaado tafsiirka quraanka kariimka ah iyo culimada islaamku waxay ka yiraahdeen midda hore weeyaan taariifkiisa aba cilmigan tafsiirka tilmaanta ay culimadu ka bixiyeen waa kala duwan tahay labada tilmaamood aan isleeyahay malaha way ugu yara fudud yihiin waxa weeyaan taw horeysa Badruddin Az-Zarkashi ayaa tilmaamaya kitaabkiisa Al-Burhan fi Ulum Al-Quran marka uu tafsiirka tilmaamaya waxa uu leeyahay cilmu yufhamu bihi kitab Allah المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة إلى آخره وعلم قفكم مركو برطه وفهم كتابك إلهي كتابك إلهي قرآن كريم كان محمد لقو سودة عليه الصلاة والسلام بحالك وإنا إنه هاي السنة وعلمك لقو فهمه ومركا تفسيرك التقانو waxaad fahmaysaa kalaamka Ilaahay marka tafsiirka taqaano waxaad kala soo bixi karaysaa ahkaamta ku jirta iyo xigmadaha tafsiirka marka sheekhu wuxuu leeyahay waxyaabo ka caawinaya waxa kamida cilmiga luqada naxwadii sarfigii iyo hadduu qofku wax ka yaqaan balaaqada usulul fiqiga qirooyinka asbaab nuzuulka waxyaabahaas oo dhan waa farniyo kala duwan oo aad kaaga saacidi karaya inaad kalaamka Ilaahay fahamto ama masalooyin kala soo bixi karto marka siiba dhalinyarada doonaya inay ummadda u akhriyaan ama cilmigan ay u sii faa'iideeyaan waxa muhiim ah in naxwada iyo sarfiga iyo cilmiga la yiraahdo balaaqada qaybta waliba macaaniga inta kala mustaxsanaadka iyo bayaanka iyo waa laga yaabaa in qof ka maarmi karo laakiin macaaniga inuu aad u fahmo aad bay muhiim u tahay usul fiqigana wax ka yaqaano waxa kale isaguna taariifiyay محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن مركو تعريفنا يوحي وعلم يبحث فيه عن أحوال القرآن من حيث الدلالة على مراد الله تعالى بقدر طاقة البشرية
markuu qofku tafsiirka ama cilmigan barto kalaamka ilaahay buu fahmaya subxaanaه watacaala iyo wuxuu ilaahay ula jeedo aayaadka macnahooda. ibnu cashuur kitaabkiisa التaxriir والtanwiir markuu isaguna tacriifinaya waxa uu leeyahy ism lilcilmi الbaaxiث can bayaani macaani alfaadi الqur'ani wamaa yustafaadu minha biاkhtisaarin aw tawasuc. waxa weeye markuu qofku tafsiirka yaqaano cilmiga tafsiirka wuxuu ka hadlaa macnaha ereyada qur'aanka iyo jumlooyinkiisa iyo sidii wax looga faa'iidaysan lahaa ama ha la soo koobo. marka qaarkood tafsiirka waa la soo koobaa marna waa la waasiciyaa. tafsiirka qaybe ayuu leeyahay. ibnu cabaas baa radia allaahu canhu ka warramayoo wuxuu uhi wajhun tacrifuhu lcarabu min kalaamiha, qayb qur-aanka ka mida waxaa lagu fahmi karaa luqada carabiga oo qofku markuu yahay qof carabi ahoo luqada carabiga si wanaagsan u yaqaana u fahmi karaa. waana asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim dee markuu nebigu ku akhriyo aayadaha macnahooday fahmi jireen. tafsiirka kalena waxa weeye tafsiirun yaclamuhu lculamaa, waa tafsiir ay garan karaan aqoon-yahanka cilmiga tafsiirka aadka u yaqaana ama culumta cilmiyada kala duwan ee tafsiirku u baahan yahay qofka yaqaana. cilmiga saddexaadna waxay tafsiirun laa yaclamuhu ila allah, iyo tafsiir ilaahay unu garanayo oo waa kaas dee ilaahay yihi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah, ilaahay unbaa garanaya aayadaha mutashaabiha macnahooda. tafsiirku siyaabaha loo fasiraa waa saddex qaybood: tafsiiru bidiraaya wa tafsiiru biriwaaya wa tafsiiru bihima. tafaasiirta qaarkood waa atafsiiru bilma'huur, waxaa lagu fasiraa daliilada la isku fasiraa. aayadihii baa aayada lagu fasiraya, aayadihii baa xadiidkii nebiga lagu fasiraya calayhi salaatu wasalaam, aqwaashii asxaabta lagu fasirayaa. markaa sida had iyo jeer maraajicdii hore ay u badan yihiin weeye, ibnu kathiir iyo dabari iyo kutubtaasay u badan yihiin. ma'huurka daliilkii bay daliilo kale ku fasiraan. tafsiirka labaadna waxa weeye atafsiiru biriwaaya bidiraaya, qofku luqada carabiga inuu ku fasiro qur'aanka kariimka ah oo ereygani macnaha uu bixinayo xagga luqa alcarabiya marka la eego, iyo jumladani macnaha ay bixinayso, iyo sida aayaduhu ay tanaasubka u leeyihin ama isugu xidhan yihiin. luqa alcarabiya qofkii aada u yaqaanaa sida uu u fasirayo tafsiirka ayaa iyadana diraaya la idhaha, oo waa xagga aqoonta. iyo tafsiir markaa labadaba la saarayo, diraayadiina lagu fasirayo, riwaayadiina la raacinayo, sida markaa shawkani oo kale kitaabkiisa uu markaa la yidhaahdo fatxu lqadiir aljaamicu bayna fanay riwaayati wadiraaya. kitaabkiisa fatxulqadiirka la yidhahdo riwaayada iyo diraayada labadaba u israaciyaa. saddexdaa qaybood ayuu noqdaa tafsiirku. tafsiirku qaybihiisa waxaa ka mid ah tafsiir taxliili wa tafsiir ijmaali wa tafsiir muqaarin wa tafsiir mowduuci. tafsiir ijmaaliya macnaha waxa weeyaan marka uu sheekhu sharxaya mufasirka ahi waa siday kutubtu u qaybsan tahay kutubu tafsiir. macnaha ijmaaligaabuu ku xisaabtamaya, aayaadkaasuu qabanaya, si guud buu sharxayaa. tafsiirka labaadna waxa weeye tafsiir taxliiliyo, waa erey buu u qabanaya. marka ereygaasi macnaha uu bixiyo, jumladaasi macnaha ay bixiso, wuu isdul taagaya. haddii ay tahay luqadda iyo hadday tahay balaaqadeeda iyo haddii ay tahay inta macnay noqoto kelmadaha. si kale haddaynu u dhigno waa laqbadii iyo sharxii oo kale. innagu had iyo jeer waxaynu saarnaa marka hore waynu laqbaynaa, tarkiibkaynu isa saarnaa si qofku u fahmo erey walba macnihiisa. tafsiirkaasi waa taxliiliga. haddana macno guud baynu ka hadalnaa oo marka laqbada aynu dhammayno si guud baa loo sharxaa si qofku u fahmo macno ijmaali weeye. mid waxaa jira la yidhaha atafsiir almuqaarin oo isagoo macnaha ijmaaliga ah sheekhu ka warramaya ayaa wuxuu soo bandhigayaa intii aayaddan ku soo aroortay tartiibkii qur-aanka isagoo ilaalinaya aayaduhu say u kala horeeyaan aayaadka kale alla macnaha ah. sidoo kale wuxuu soo aroorinaya axaadiidta aahaartii horena waynu usoo yar ishaarno waa tafsiirkii ahaa ma'huurka ayaa dhinacana muqaarin ka noqonaya. daliiladii buu kusoo wada aroorinaya halka. tafsiirka mowduuciga ahi waxa weeyaan sheekhu maalan wuxuu soo qaadanayaa mowduuc caqiidadoo kale, salaadoo kale, soomkaoo kale. ma eegaya aayaduhu say isugu xigxigaan, laakiin wuxuu eegayaa maalan mowduuca uu ka warramayo inta aayadooda kusoo arooray
salaadoo kale haddaynu ka soo qaadano salaadii buu soo dhigayaa markaa inta aayadooda ku soo aroortay ayuu soo bandhigayaa iyo axaadiidta ku soo arooray marka mowduucu u jeedaaye laakiin uma jeedo inuu aayaduhu si ay isugu xigaan uu ku xisaabtamo waa qaybaha culimadu maraajicdooda aad ku arki doonto ee ay wax u fasiraan qofka mufasirka ee qur-aanka fasiraya waa mowduuc kale isnee aynu u gudbayno oo cilmu tafsiir la xidhiidha wuxuu leeyahay shuruudo ayuu leeyahay dhammaanteena waxaynu u socnaa ama had iyo jeer dadka aqoon-yahankee da-yartu waxay u socdaan inay dee kalaamka ilaahay intay fasiraan dadka gaadhsiiyaan oo xikmaddu dee dhegaysi iyo ifaade iyo istifaada labadaba way isugu jirtaa inuu qofku wax faa'iidaysto dadkiina usii gudbiyo oo u faa'iideeyo markaa shuruudaha waxaa ka mid a qofka doonaya inuu tafsiirka barto ummadda sii gaadhsiiyo sixatu lictiqaad in ictiqaadkiisu wanaagsan yahay way dhacdaa ama way jirtaa macruuf weeye dad badan oon ictiqaadkoodu wanaagsanay inay qur-aanka fasiraan oo xataa dee gaaladaba qaybbaa mufasiriina nimanka loo yaqaano mustashriqiinta ee diinta kiristanka faafiya qaar baa tafsiirka iyo luqada iyo culumta kala duwan sharxa markaa qofka had iyo jeer tafsiirka laga qaadanaya wax laga faa'iidaysanaya waa in caqiidadiisu wanaagsantahy oo qofkaas munxarif aanu ahayn gaal la ahayn waxaa shuruuda ka mid ah atajaradu can ilhawa qofka rabitaankiisu inaanu hagaynin ee xaq uu hagayo waa kalaamkii ilaahay marka qofku rabitaankiisa waa inaanu u qalloocinin oo ujeeddooyin kale waa inaanu u duwin ee sidii saxda ahayd ee culimmadii hore salafku ay u fasireen asxaabtu ay u fasireen ee luqada carabiga waafaqsan waa inuu fasiraa aadaabta waxaa ka mid ah ama shuruudaha an yabda awalan bitafsiiri اlqur'aani bilqur'aan inuu qur-aanka isku fasiro sida uu had iyo jeer sameeya ibnu kaiir raximah اllah aayadihii buu isku fasirayaa wa khayru maa fusira bilwaarid wax lagu fasirana waxa ugu fiican waxyiga soo arooray oo qur'aanka alqur'aanu yusadiqu bacduhu bacda qur-aanku isma beeninayo iskama hor imanayo wuuse isfasirayaa waxaa ka mid a shuruudaha ama aadaabta inuu qofku sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiidta nebi maxamed ka soo aroortay in qur'aankii lagu fasiro axaadiidta saxiixa ama xasanka ama mutawaatirkee sugan xadiidka sugan xagga sanad ahaan in aayaddii lagu fasiro oo ilaahay baa wuxu uhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh waanu kugu soo dejinnay qur-aankii adiga oo dadka u fasiraya waxaa la doonayaa dadka inaad u fasirto aadaabta waxaa ka mid a ama aan idhaahnay haddii uu waayo qofka mufasirka ah intaa hore aynu soo sheegnay aqwaashii asxaabta ayuu u noqonaya xayثu inahum xadaruu rasuula wacaasaruu tanziil waxay la joogeen nebi maxamed ayay la fadhiyeen oo qur-aankii oo qoyani ku soo degayo wixii ay garan waayeenna waxbay ka weydiin jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer cidda qur-aanka tafsiirkiisa laga qaadanayo waa iyaga wey fahamka ugu fiicanna iyagaa lahaa waaqicu qur-aanku ka hadlayo siduu u hadlayo asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim qayb lagu yaqaanay tafsiirka ayay lahaayeen oo caanku ahaa sida ibnu mascuud iyo cabdillaahi ibnu cabaas iyo rag kaleba waxyaabaha lagu fasiraya waxaa ka mida ama qofka mufasirkaa shuruudiisa waxaa ka mid a alcilmu biاlugati اlcarabiyati wa furuuciha taa hore aynu soo sheegay qofku inuu yaqaano luqada carabiga oo aanu luqada carabiga dee ka been sheegayn ama si qalada u fasiraynin luqada carabiga waa la yaqaanaa marka loo noqdo maraajicdeeda marka la eego usuusheeda kelmaddu macnay tusisaa waxaa ka mid a alcilmu biusuuli culuumi اlmutasilati biاlqur'aan inuu qofku wax ka yaqaano culumta la xidhiidha qur-aanka hore aynu soo tilmaano waxaa ka mid a diqaة اlfahmi alatii tumakinu اlmufasira min tarjiixi macna calى aakhar inuu qofka qur-aanka fasiraya yahay qofa fahmo leh fahmada allah inoogu roonaado dhammaanteen ilaahay baynu ka baraynaa fahmade fahmadaasaynu ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala oo dadkuna waa kala fahmo badan yihiin markii la yidhi cali bnu abi aalib ma jirtaa haddaa aalu beytkii nebiga tihiin wax uu nebigu idinku gooni yeela calayhi salaatu wasalaam oo sir ah ama xog ah oo aanu asxaabta kale siinin maya buuri maya xaashidaa yar waxaa ku qoran way jiraan waa wax iska caana xaashidana ku qornaa iyo faham ilaahay uu siiye qofka dee kalaamka ilaahay uu ka fahmo hadday dhacdo annagoo aalubeytka ka midi kalaamka ilaahay inaanu wax ka fahamno oo faham dheeraada ilaahay uu noo siiyo oonu wax ka sheegno
taasite waa arrin hibe ilaahay weeye laakiin wuxuu nebigu noo gaar yeelay ma jira buu lahaa cali bn abi aalib radia allahu canhu marka qofka dadku way kala duwan yihiin qofna waa qof baliida oo fahmadiisu adag tahay ama aan hore waxu fahmin ama fadin ahayn qofna waa qof maskax furan oo sida dee culumtan kale ee maadiga ama la bartaba dadku way u kala maskax furan yihiin marka qofku had iyo jeer inuu markuu mufasir noqonayo fahamkiisu wanaagsan yahay wey aadaabta taas shuruudi bay ahayn aadaabta waxaa ka mid a in qofkan isaga niyadiisu ay wanaagsan tahay waxaa ka mid a akhlaaqdiisu inay wanaagsan tahay waxaa ka mid a in uu ku dhaqmayo waxyiga ilaahay oo markuu qofkii tafsiirkii fasirayo aayadihii dadkay la hadlayaan isagaa ugu horeeya saa daraaddeed waa inaynu ku dhaqannaa waxyiga ilaahay taxari sidqi waadabti waannaql qofkani waa inuu runta had iyo jeer ku dadaalo xaqa waa inuu la jahro tawaaduca waa inuu ogaado wacizatu nafsi can safaasifi lumuur naftiisu waa inay ka santaagto oo uu iskala wen yahay qofkii arrimaha liita qofkii hadduu qof mufasiraya ama tafsiirkiiba baranayo waa inuu had iyo jeer yahay qof tusaale ah oo dhacdhaca iyo waxyaabaha sharaftiisa wuxu dhimaya iyo culimanimadiisa iyo waa inuu ka durkaa karaamada aynu ilaalinaa ilan dadkii baynu doonaynaa inaynu kalaamkii ilaahay nafteenna ku saxno ugu horeyn dadka kalena gaadhsiino waxaa kale oo lagama maarmaan alanaah falaa yasrudu lkalaama sardan bal yufasiruhu aw yubaayinu marka tafsiirka uu qofku fasirayana waa inuu si degan qofku fasiraa dadweynaha isfahmaan dadka macaamiishiisa ama waxuu gaadhsiinayo waa inuu ku talagalaa in cid waliba ay fahmi karto xasba istiaacati inta awoodiisa ah waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer fasiixa ama baliiqa ahi waa qofka gaadh kari kara ama awoodi kara waxa laabtiisa ku jira inuu dadka soo gaadhsiiyo haddii qofku aftahan uu yahay wey hadduu agnaan yahayna wuxuu odhanayaa waxaan waan garanayaa laakiin waxaanan awoodi karaynin inaan kuu sheego way dhacdaa warniga waxaa waan fahmi karaya hebelow laakiin sidii aan kuugu sheegi lahaaba igu adag markaa qofkii bal inuu maaragtay xaawilo ilaahay baa bixiya laakiin haddana inuu isaga laftiisu ku dadaalo inta awooddiisa ah sidii uu dadka ugu cadcadayn lahaa uu isaga soo qaadi lahaa qofka aan waxba garanaynin halkiisa waa inuu isdhigaa dhegaystayaasha waxaad iska soo qaadaysaa inaad adigu halkaa fadhido oo aad tahay qof aan waxba garanayn af carabigana garanaynin culumtan kala gaargaarka aana garanaynin kaasaad la hadlaysa dadkii waa dad isku jira waa qof aqoon leh qof iska jaahila qof dhexdhexaada qof luqadii carabiga garanaya mid aan garanaynin qofki waa inuu ku xisaabtamaa inuu intaba wax wada gaadhsiin karo taana ilaahay baynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo dhib yareeyo waanaynu isku dayi doonaa bal inaynu dixiin iska dhigno waxay yidhaahdaan qolo waliba waxay ku odhanaysaa soomaalida afka aad ku hadlaysa waa mid buurbuuran dad badan baan fahmaynin marka adiguna waxaabaad isleedahay waadixiyo aada u iftiimiyo af soomaali asala ku hadal marka way jiraan lahjadihii baa kala duwan soomaalidu ay ku hadlaysay waxaa jiro oo kale dad da-yarahoo casrigan jooga oo luqadda waxyaabo badan oo hore aan garanaynin oo luqadooda ay tahay luqad khafiifa markaa cid walba in lagu xisaabtama aad bay muhiim u tahay waxay inagu badan runtii oo aan la dafiri karaynin dadka wadaadada ah inay aada u isticmaalaan af carabiga oo markaad aada u dhegaysato qofka boqolkiiba 20 ama 30 ayaa erayo carabiga ku badan marka qofkii wuu ka dhacayaa mar kasta ood soo gudbiso erey carabiya oo aanu fahmin macnihiisa laba Soomaaliya marka aad u sheegto mid carabiya kaga dhex tarmo wuu ka yara dhacayaa sidaa daraaddeed iyaduna taasina ku xisaabtan bay leedahay intaa waxa sii raaca in qofku uu wax ka barto fikrad iyo aragtina uu ka haysto culimada mufasiriinta ah iyo tafaasiirtooda taasina way inoogu jirtay inaynu sheegno laakiin waqtiga ayaa qaybtan hore ina soo celiyaya tafaasiirtu waa noocyo qaarkood baa maraajicda ka mida laakiin ay ku badan yihiin qisooyinka israa'iliyaadka ah iyo riwaayooyinka aan takhriijsanayn ama aan la shaandhaynin ayaa ku badan marka wuxuu qofkii u baahan yahay hadduu kutubtaa wax ka faa'iidaysanayo inuu kitaab mukharajahoo la shaandheeyey riwaayooyinkiisii axaadiidta iyo aahaarta
أما هذا الذي أصحاب إنه قاتو كل كتب تأديب سنة يستوحي كاجبهين إن العلماء أقوم تقوله وحكاء فائدي ستو أو تلا كلا تشتكوا أديب سنة لهيد كل مستوى أما أديك كل هيرة وأنا مدور بيستقادا شيعة كتب بيلاين أهل السنة كتب بيلاين marka dadku shiicada iska soo xambaartana wax badan baad iyadana kala kulmaysa taladana way bixin lahayn haddaan istaahdaa halkan ka akhri kutubta ka hadlaysa cilmu tafsiir kuwii hore iyo kuwa dambeba iyo culuumul quraan waqti dheer bay naga qaadanayaan laakiin arintaas baa baraarujin lahaa وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان